iga waran adiga iyo Saddam Hussein cilaaqaadkan iga dhaxeeya. xiriir noocee ayaad ka wadaa markaa? yacni waxaan ka wadaa siyaasadda. waxaan isla nahay dawlad caraba iyo dawlad caraba. xiriirka naga dhaxeeya waa laba dawladood oo carab ah. waxaan doonayaa oo kaa codsan lahaa inaad igu caawiso muwaadiniin Swedish sidaan u soo deyn lahayn oo ugu celin lahayn wadankooda Sweden. ma waxaa jira muwaadiniin Sweden oo ku sugan Ciraaq? haa, halkaa imika waxaa ku xidhan muwaadiniin Swedish wadanka Ciraaq. haa, waxay doonayaan inay ku noqdaan guryahoodii, laakiin waxaa diiday Saddam Hussein inay ku noqdaan guryahooda. ayay doonayaan. ma awoodaa taa adigu inaad igu caawisid oo aad kala hadasho arrinkan Saddam Hussein? haa, waan isku dayi doonaa. ma isleedahay adigu arrinkan awood ayaad u leedahay inaad ka dhaadhiciso? haa, waan isku dayayaa. waayo Swedishku maaha Maraykan. mar uu dagaal ku qaaday Saddam Hussein waddanka Kuwait 1990 oo ay magaalada soo galeen ciidankii Ciraaq, halkaas oo ciidamada Ciraaqiyiintu ay ku qabsadeen diyaarad ay saarnaayeen muwaadiniin Swedish ah. diyaaraddaas oo laga lahaa waddanka Ingiriiska. markii ay rakaabkii ka soo dejiyeen diyaaradda, waxay burburiyeen diyaaraddii. rakaabkii saarnaana waxaa maalmo lagu hayay hotel u dhow madaarka. muddo kadibna waxaa loo qaaday Baghdad. waxaanu madaxweynaha waddanka Ciraaq, Allah u naxariistay, Saddam Hussein u ballan qaaday rakaabkii diyaaradda saarnaa ee loo qaaday waddanka Ciraaq. waxaanu u sheegay in ay martidiisa yihiin una wanaajin doono oo aydan ahayn kuwa madax furasho loo haysto. waxaana jiray wiil yar la yiraahdo Stuart Kilakood, kaasoo Saddam Hussein agtiisa soo fadhiisiyey, madaxana uu ka salaaxay